wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar waxa uu lunsaday laba lacagood oo kala gaar ah $553,000 iyo 50 senti oo meel ah iyo $901,449 iyo 30 senti. aniga ma oran sidaa. hantidhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali iyo xafiiskiisa baaritaan ay sameeyeen ayaa lagu soo saaray warbixin daaha ka rogaysa musuqmaasuq baahay oo ka jira wasaaradda gaadiidka ee Omar hogaamiyo. cadaymo iyo marqaati fur ay sameeyeen shaqaalaha sarsare ee wasaaradda ayaa sal u ah baarista hantidhowraha qaranka sameeyay oo la xiriirtay lacagta soo gashay wasaaradda sanadka 2017. November 3, 2018 ayaa baaristan bilaabatay. wasaaradda gaadiidka dhowr jiho ayay lacagaha ka soo galaan bixinta laysinada, buugaagta gaadiidka iyo kala wareejinta lahaanshiyaha gaadiidka. dhammaan howlahan waxaa qabta shirkad lagu magacaabo Modern Technology oo uu leeyahay wasiirka wasaaradda Cabdullaahi Omar. sida ku cad xisaab xirka hantidhowraha lacagaha shirkaddan ay qabatay waxaa dawladda loo xareeyay 40% halka bil kasta shirkaddan ee uu wasiirku leeyahay ay qaadan jirtay 60%. si kale haddaan u dhaho haddii $100 soo gasho wasaaradda 60 buu la haray wasiir Omar. tusaale xisaab xirka dakhliga shirkadda Modern Technology sanadka 2017 waxay qabatay wadar guud 1.5 milyan iyo dhowr kun. waxaa qasnada dawladda ku dhacay $600,996 iyo 20 senti. shirkadda Omar waxay la hartay 60% oo u dhiganta. in sidan wax loo qaybiyo ayaa ka dambeysay kadib heshiis ay wada galeen wasaaradda gaadiidka oo uu ka socdo Maxamed Cabdullaahi Omar iyo shirkadda Modern Technology oo isla Omar iyadana mataliyo. waxa xaqiiq cadaymo loo hayo. agaasimaha guud ee wasaaradda Ali Gacal ayaa ku jira dadka la baaray ee la wareystay. waxaa jawaabihiisa ka mid ah heshiiska ay wasaaradda gashay inaan laga diiwaan gelinin xafiiska hantidhowraha qaranka waxaa sababay wasiirada ayaa gacanta ku hayay. arrintan ayaa sharciga baalmarsan. waxaa jira dakhli ay wasaaradda qaban jirtay oo ka madax bannaanaa shirkadda Modern Technology oo aan lagu shubin qasnada dawladda. garoonka diyaaradaha oo hoos taga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ka mid ah goobaha baarista lagu sameeyay. dakhliga ka soo xarooda kirada guryaha maqaayadaha ku yaala airportka iyo parkinga gaadiidka lacagtaas ayaa loo qaadaa qaab bil ah. hantidhowraha warbixin uu qoray ayaa lagu yiri dakhligan waxaa lagu qaban jiray buugaag wasaaraddu samaysatay. macnaha wasiirka waxa uu samaystay rasiidyo u gooni ah oo lacagta ku qabto si aan xisaabtaasi loogu wareejin wasaaradda maaliyadda. waxaana lacagtan loo isticmaalay qarashaad ku baxay safarro iyo adeeg. tusaale wadarta dakhliga la qabtay iyo dakhliga la isticmaalay ayaa isla eg, taas oo ka dhigan in gebi ahaan lacagtan la isticmaalay. ogow wasaaradda waxay leedahay miisaaniyad u gooni ah oo loogu talagalay in lagu qabto dhammaan howlaheeda. xafiiska hantidhowraha ayaa waraysiyo ka qaaday shaqaalaha wasaaradda. qasnajiga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Mahad Yuusuf Cabduqaadir oo la weydiiyay in caqabad uu kala kulmo madaxda wasaaradda ayaa waxa uu yiri agaasimaha guud ayaa ay amray inaan hal fure oo midka qasnada aan siiyo agaasimaha maamulka cusub. waxaan rabaa in shaqadeyda la ii madax banneeyo. maamul xumo iyo ku tagrifal lacagaha wasaaradda oo loo isticmaalay safarro iyo dana shakhsi ah ayaa lagu eedeeyay Omar. waxaa musuqmaasuq lagu xukumay sanadkan dad dhowr ah. Axmed Cabdullaahi Samow madaxii furdada ee dekedda 3 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay. agaasimaha wasaaradda gargaarka Daahir Axmed Nuur 3 sano iyo bar xabsi ah ayaa lagu xukumay kadib eedayn ah in 84,000 uu xaday. wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda ayaa xilkiisa ku waayay kadib markii lagu eedeeyay ku tagrifal hantida qaranka. wasiirka maxkamadda gobolka Banaadir dambiga way ku weysay. haddaba Maxamed Cabdullaahi Omar waxa uu ku xadgudbay sharciyadan. muxuu yahay xukunkiisa cadaalad iyo sharciga ma loo sameeyay?